hubka culus iyo taangiyada dagaalka ee dowladda Eritrea ayaa ku soo qulqulaya gudaha dalka Itoobiya si ay qayb uga noqdaan dagaalada mar kale ee lagu jabinayo kooxda TPLF. afayeen u hadlay TPLF ayaa sheegay inaysan jirin cid hor istaagi karta macaroobka oo ay ku sii siqayaan deegaano hor leh ayna doonayaan inay guud ahaanba burburiyaan Itoobiyada cusub ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. maamulka canfarta ayaa dhankooda ku faanay inay hub ka qabsadeen ururka Tigreega. ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno dagaalo la isku riiqmay oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah maamulka Amxaarada halkaas oo ay dagaaladu iminka ka socdaan. beejkan ku soo biir oo leeg saar filowda siina share garay warbixintan sidoo kale linkigeena hoose raac oo subscribe saar YouTube-keena Calan TV kuna soo biir oo rukuma mahadsanid. aynu ka horeyno dowladda Eritrea waxa ay bilowday mar kale ay dib ciidamadeeda ugu soo celiso gudaha dalka Itoobiya si loo garab siiyo xukuumadda Abiy Ahmed oo ay talafareeda ka sii baxayso awoodii ciidan ee Itoobiyana laga jabiyay. goobjoogayaal ku sugan xadka ay wadaagaan Eritrea iyo Itoobiya ayaa wakaaladaha caalamiga u sheegay inay arkayeen ciidamada dalka Eritrea oo wata gaadiid ka gaashaaman taangiyada dagaalka oo ku qulqulaya xuduudka Itoobiya iyo Eritrea si ay gudaha ugu galaan goobaha lagu dagaalamayo ee ay isku hayaan dowladda Itoobiya iyo sidoo kale qoomiyadda Tigreega. wararka aynu ka helay xuduudka ayaa ku waramaya in ciidamada Eritrea oo si weyn u qalabaysan ay ka soo ruqaansadeen saldhigyada waaweyn ee gudaha Eritrea si ay mar kale u garab siiyaan xukuumadda Abiy Ahmed oo qaatiliyaan ka taagan dagaalka ay kula jirto kooxda TPLF. hore Itoobiya waxay u dalbateen ciidamada Eritrea ay ka baxaan gudaha Itoobiya kadib markii eedeymo culus loo jeediyay in ciidamada Eritrea ay xasuuq geysteen. balse iminka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xaalka siyaasadeed iyo mid ammaanba ay ku xun tahay ayaa dib u dalbaday ciidamada culus ee dalka Eritrea sida ay ku waramayaan ila muhiim ah. ciidamada Eritrea waxaa la filayaa inay ka barbar dagaalamaan kuwa Itoobiya iyo qoomiyadaha Amxaarada, Canfarta iyo Soomaalida ee dagaalka kulul kula jira kooxda TPLF. dhankooda kooxda TPLF ayaa ka hadlay dagaalo culus oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Amxaarada. TPLF waxa ay sheegtay inay guud ahaanba ku sii siqayso deegaano hor leh oo ka tirsan dhulka Amxaarada iyo meelo kale oo ay sheegaan inay bartilmaameedsanayaan. waxa ay sheegeen qoomiyadda Tigreegu inay sii wadi doonaan dagaaladooda ku wajahan qaybo badan oo ka mid ah dhulka Itoobiya. afayeen sare u hadlay kooxda TPLF oo lagu magacaabo Getachew Reda waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka. ciidamadayada ma jirto cid hor istaagi karta, waxaynu ku sii siqaynaa deegaano hor leh. maca roobku naba hor istaagi karo iminka awoodeena ayaa sareysa dhammaanna waan jabinay militariga naga hor yimid ayuu yiri afayeenka TPLF. sidoo kale waxa uu sheegay in marba marka ka dambaysa ay ku sii siqayaan dhul hor leh oo ay qabsanayaan. arrintani ayaa u muuqata inay mar kale xaajada sii xumeynayso. dhankooda qoomiyadda Canfarta ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay taangi dagaal oo ay ka qabsatay kooxda TPLF siday hadalka u dhigtay. taangigan oo ay dusha sare ka fuushanayeen ciidamada qoomiyadda Canfarta waxay maamulka Canfartu sheegeen inay dagaal uga qabsadeen kooxda TPLF. ma jirto ila ka madax banaan oo xaqiijinayo in gaadiidkan laga qabsaday kooxda TPLF, balse maalmihii la soo dhaafay qoomiyadaha Itoobiya oo intooda badan isku dhinaca kooxda TPLF ayaa isku hayay qaybo badan oo ka mid ah dhulka Amxaarada. wararka aynu helayno ayaa sheegaya in ciidamada TPLF ay qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Amxaarada. wararku waxay intaasi ku sii darayaan in deegaanada la qabsaday ay aad ugu dhow yihiin magaalooyin muhiim u ah qoomiyadda wadankaasi ee Amxaarada. dagaaladii ugu cuslaa ayaa la soo warinayaa inay ka soconayaan qaybo ka mid ah gobolka Amxaarada. dagaalku waxa uu ka soconayaa tuulada Lema Gobiye
oo duleedka ka magaalada Waldiya ee deegaanka Amxaarada. labada dhinac ee dagaalamaysa waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. waxaa la sheegay in dagaalkaasi ay dad badan ku dhinteen, kuwa kale tan ay ku dhaawacmeen. beesha caalamku waxay u muuqataa inay gacmaha ka laabatay xaalka Itoobiya, balse waxay wadaan sidoo kale dhaqdhaqaaqyo dhinaca diblomaasiyadda oo ay ku doonayaan inay iskugu keenaan ururada siyaasadda Itoobiya si mar kale looga xaal waramo in bal xaalka la qaboojiyo oo xabadda Itoobiya ay hakato. dhinaca kale qaybo badan oo kamid ah dhulka ay Soomaalidu degto waxa ka dhacay doodbaxyaal xoogan oo ay dad ku dhigayeen. waxay uga soo horjeedeen maleeshiyaadka canfarta oo maalmeen la soo dhaafay xasuuq ka geystay magaalada Garbaciise iyo qaybo kamid ah dhulka ay Soomaalidu degto. halkan nagala soco ku soo biirbeejka Lexaro Flowde siina share gare sidoo kale tan asxaabta YouTube-kana ku xiran noqo mahadsan.